السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا magacaygu waa Cali Caamir mar kale ku soo dhawaada muuqaal ku saabsan cilmiga caafimaadka. Sidaan wada ognahay waxaan mar walba ka hadalnaa waxyaabaha la xiriiro caafimaadka, gaar ahaan waxyaabaha la xiriiro preventionka, awareness-ka, treatment-iga and medical ethics-ka. sidaa darteed maanta mowduuc gooni kama hadlaayo, laakiin waxaan ka hadli doonaa general medicine, waxyaabo consultation ah oo ku saabsan marka la joogo maxaa la dhahayay yacni ka hortagga cudurrada qaarkood. sida caadiga waxaa la dhahaa carabiga mahmaha ayaa dhahaysay alwaqaayatu khayru min alcilaaj, ama oraha ayaa saas ahayd, ama prevention is better than cure ayay dhahaan afka Englishka. dabcan sidaan wada ognahay mar walba waxaa muhiima waxyaabaha cudurrada keeno waa wax la ogyahay, baniaadamkuna yacni waxyaabaha horumarka uu ka sameeyey ay kow ka tahay, ama maxaa la dhahaa adduunyada horumartay waxyaabaha developmentii ku sameysay waxaa kow ka ah in la ogaado maxaa keeni kara cudur hebel ama xaguu ka yimaadaa, gaar ahaan markii la joogo cudurrada la daraaseeyey ee loo yaqaano communicable disease. waa cudurro la yaqaano oo loo yaqaano maxaa la dhahaa kuwa faafa, cudurrada faafa, halka cudurrada qaar ay yihiin kuwa aan faafin, non communicable disease. marka kala ablaableynta markii la sameynayo cudurrada faafa waa cudurrada ugu khatarta badan ee baniaadamka xilligan, weliba gaar ahaan wadamada Afrika ku badan, sida cudurrada loo yaqaano food poisonska, cudurrada loo yaqaano waterborne-ka ama water poison, iyo wixii la halmaala. marka sida caadiga caafimaadku wuxuu sheegayaa mar walbo in yacni ay tahay oraah ah saving life, in nafta baniaadamka la badbaadiyo waa waxa ugu horeeya caafimaadka oo targetka ka dhigtay, ama markii kow yani qaanuunka caafimaadka la dejinayo waxa ugu horeeyo ee laga fikira waxa waaye in nafta qofka la badbaadiyo. kadib ayaa waxaa loo dejiyey marka classification ama kala ablaableyn la kala qaadqaaday. kuwan waxaa la yidhaahaa bakteeriyaad keeno cudur heblaayo, kuwan waxaa la yidhaha virus cudurkaasay keenaan, kuwan waxaa la yidhaha parasites ama dullin waxa loo yaqaano cudurradaasay keenaan. saasaa loo kala dedejiyey. sidaa darteed mar walba waxaa muhiima yacni meel caafimaad qofku markuu ka shaqeynayo uu joogo waa inuu target ka dhigtaa inuu nafta qofka bukaanka badbaadiyo, ha ahaado outpatient bukaan socod ama ha ahaado inpatient qof bukaan jiif oo isbitaal joogo. marka iyagoo saas ay tahay ayaa caafimaadku haddana wuxuu sii kala leeyahay hospitalization waxa la yidhaha qofka in loo sameeyo maxaa la dhahaa in caafimaadkiisa loogu daryeelo isagoo isbitaalka ku jiro oo admission loo sameeyo, iyo qof outpatient ah oo bukaan socod iska ah oo hospitaal aan joogin oo maxaa la dhahaa laakiin cudurro laga qaadi karo oo patient in la keergareeyo u baahan, asiga naftiisa la keergareeyo, dadkana in laga keergareeyo oo tusaale ahaan yacni wixii cudur uu qabay inaysan dadka kale caafimaad qaba aysan u gudbin. soo isna qofkaas cudurrada laga qaado waxaa loo yaqaanaa acquired disorders, ama cudurrada yacni qof bukaan socod uu gudbiyo. soo marka cudurrada waxaa la yidhaahdaa acquired diseases iyo hospital maxaa la dhahaa hospitalization acquired diseases. intaa haddana waxaa sii dheer marka caafimaadka yacni qodobadiisa hoose loo sii hoosgalo, maxaa qofkan ku keeni karo cudur hebel. tusaale ahaan maxaa ii keeni karo cudurkan loo yaqaano maxaa la dhahaa hargabka ama fluga oo influensaha. tusaale ahaan oo kale waxaa ii keeni karo qof cudurkii qabo inaan jaar la noqdo, ama aan la tacaamulo, ama weel uu wax ku cunayaan ku cuno, ama igu neefsado, ama igu hindhiso. intaa haddana waxaa sii dheer hargabka preventionkiisa keliya ma ahan in qofkaas aad ka fogaato, waa inaad ka fogaato wixii uu ku imaanayay viruskan inuu jirkaagu soo galo. ay kow ka tahay immunitygaaga inuu hoos u dhaco, ay kow ka tahay in qof maxaa la dhahaa cudurkan qabo wax uu isticmaalay oo kale aad la isticmaasho. marka mar walba waxaa muhiima oo xoogga caafimaadka uu saaraa waxaa loo yaqaano cudurrada yacni adduunka
hadda ka jiro la yiraahdo emergent disease cudurrada hadda socdo xilligan adduunka dhibaatada u geysanaya nafta bani'aadamka treating life-ka ama carqalada ku ah ama cudurrada yacni waa hore adduunka qaarkiisa laga cirib tiray sida booliyada TB-da wadamada qaarkood waa laga cirib tiray wadamadan horumaray Europe ama European countries-ka laakiin Africa iyo Asia meelo kamid ah ayay aad ugu badan yihiin weli emergent ay ku yihiin soo marka epidemiologically ahaan waa la daraasiyay waana la yaqaanaa in cudurkan meesha uu ku badan yahay yacni lagala tacaalo lagala dagaalamo oo talaaladii hadday jiraan cudurkan oo kale talaal uu leeyahay in la geeyo sidaa darteed mar walba waxaa muhiim ah inaan dheereeyo mar rabo muuqaalka mar walba waxaa muhiim ah cudurrada in loo kala saaro communicable disease iyo non communicable disease communicable disease waxaa ugu caansan bakteeriyaadka keeno cudurrada loo yaqaano enteric fever-ka ama cudurrada ku dhaca intestinalka iyo abdominalka sida tusaale ahaan bakteeriyaadka la yiraahdo rare gram negative la isku yiraahdo sida salmonella H pylori sida shigella iyo maxaa la dhahaa kuwa kale oo tiro badan cudurrada non communicable disease waxaa kow ka ah cudurrada la yiraahdo contagioska non contagioska aan dhahay cafwan hereditary ku yimaado tusaale ahaan oo kale diabetic-ka sida tusaale ahaan oo kale HTN-ka ama hypertension-ka sida iyo cudurrada yacni kuwa soo hoos galo tirada badan qofka kale uusan ku daari karin ama direct contact uusan ku gaarsiin karin sidaa darteed marka waxaa muhiim ah qofka caafimaadka ka shaqeynaya ama naf inuu badbaadiyo rabo markuu qofkan rabo inuu xaaladiisa ogaado waa inuu yaqaano qofkan cudur faafa miyuu qabaa horta mase cudur aan faafin ayuu qabaa oo sidaas loo kala saaro marka mar walbana waxaa muhiim ah in qofka yacni dhakhtarka ama medicalka ku jiro ha ahaado shaybaarista ha ahaado nurse ha ahaado dentistry ha ahaado GP ha ahaado speciality waa inuu og yahay what causes disease waxa cudur keeno cudur waxa keeno sidaa daraadeed marka cudurka waxa keeno ogaata waxa usii kala saari kartaa cudurkan communicable miya cudur faafa miya cudur non communicable ah oo faafin intaas ayaan yacni dulmarka general medicine-ka waxyaabaha la xiriiro kusoo koobaya fadlan haddii aad maxaa la dhahaa ku cusub tahay page-ka ama YouTube-keena please ha iloobin inaadna dhiirigeliso oo aad subscribe inoo saarto ama maxaa la dhahaaye aad followna soo dhahdo hada wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh